guddi culumaha oo ka dhisan waddanka jamhuuriyadda jabuuti lana magacbaxay ururka al aqsa oo la sameeyey dagaaladii dhex maray dalka falastiin iyo waddanka israa'iil kuwaasoo gumaad baan israa'iil ay u geysatay dalka falastiin guddigaas oo dhowaan deeq ka kooban raashin iyo daawoba waxa ay geeyeen magaalada rafa ee ku taalla xuduudda falastiin iyo masarba ururka al aqsa oo horkacaya sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir oo ka tirsan ururka al aqsa kaasoo kulmiyey culimo dhowra oo u dhashay waddanka jamhuuriyadda jabuuti deeqdan waxaa soo aruuriyey shacbiga reer jabuuti sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlay qaabkii ay deeqdaasi u gudbiyeen waxa uu yidhi aan ahayn urur la yidhaahdo al aqsa oo laga qabanqaabiyey dhismihiisa iyo samayntiisa dalka jamhuuriyadda jabuuti oo la sameeyey markii ay dhacday dhibaatadii weyneed ee ku dhacday ummadda reer falastiin ee degan gobolka ghaza arrintaas oo markii ay dhacday ay u kaceen ummadda reer jabuuti dhammaantood shacbi iyo xukuumad aan loo kala hadhin baa keensatay inay ummadda reer jabuuti ka dhiidhiyaan gardaradii foosha xumayd ee bahalnimadu ay ku jirtay ee ay sameeyeen dadka amba xukuumadda sahyuuniyadda israa'iil oo lagu baabi'iyey gobolka ghaza laguna laayay ubad iyo dad waaweyn oo duqa ah oo madaaris iyo iskuullo iyo masaajid aada u fara badana lagu baabi'iyey oo lagu dumiyey noloshii dadkaana halis la geliyey markaas bay ummadda reer jabuuti ay kaceen si ay uga qayb galaan dhibaatadaas iyaga oo ummadda reer jabuuti si aad ogtihiin ay yihiin wadanada saboolka ah ee dunida gaajadu ay haysato ka mid a laakiin maca daalika waxa ay isku dayeen inay aayad qur-aan oo kitaabka ilaahay ku jirta inay dabaqaan wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ilaahay baa dhahay subxaanahu wa tacaala naftooday ka doorbidaan walaalahood dhibaata haba haysata iyo kae marka ummadda reer jabuuti waxay ku sara kaceen inay lacag ay ururiyaan kadibna ay sameeyaan ururka al aqsa oo la furo koonto amba koont amba sunduuq baanka saba la yidhaahdo ee jabuuti ku yaalla qeybtiisa jabuuti ku taalla waxaana lagu ururiyey lacag aada u fara badan oo dadka reer jabuuti ay bixiyeen oo iyaka marka loo eego fara badan dunida kale marka loo eegana aan wax badan ahayn 80,000 oo dollarka maraykanka iyo halkaa lagu ururiyey lacagtaas baan isku daynay in aan soo qaadno oon keenno halka kan qaahiro masar kadibna aan usii gudbino dalka falastiin gobolka ghaza waxaan la kaashanay arrintaas ururka dhakhtarada carabta ay ku midoobeen qeybtiisa gurmadka iyo horumarka ururkaas baa markaasi nagala qayb galay inaan arrintaa aan ku guulaysano insha allahu tacaala lacagtaas waxaan u bedilnay markii halkan aan imanay anagoo ururkaasi aan la shaqaynayna 3 qaybood baan u bedilnay qayb waxaanu ka dhignay cunto qaybna waxaan ka dhignay dawo qaybna waxaan ka dhignay waxyaalooyinka dadka lagu daweeyo dadka kaliyaha iyo dhibaatooyin fara badan haystaan kaliya meerka iyo wixii la mid ah waxyaalada kaleeto oon ka qayb galnay waxaa ka mid ahaa in aan ziyaaro ku tagnay dhakhtarka ku yaala qaahira oo falastiin magaciisa la yidhaahdo dhakhtarkaas waxaa degan dad reer falastiina oo dhaawacyo ay soo gaadheen kala duwan intii dagaalku ka socday ghaza dadkii waan ziyaaranay waxaana halkaas aan ugu deeqnay 7,000 oo dollar oo aan ugu dhiibnay dhakhtarada masaarida si loogu sameeyo lugo waad arkaysiin taswiiraha dadkaasi luguhu go-an yihiin qaar jilbahay ku go-an yihiin qaar tafaha dhexda ku go-an yihiin qaarna horebay u go-an yihiin marka lugahaas oo loo samayn doono lugo afarta dhinacba u dhaqaaqay afarta qaybood bini'aadamku u socon karo hadday hor tahay iyo hadday gadaal tahay iyo hadday dhan midig ama dhan bidix tahay intaba u socon karaan iyakana waa halkaas 7 qof baanu ku seenay qofkiiba 1,000 oo dollar 1,000 dollar 7,000 oo dollar markaa 7 qof isku noqdeen intii kaleetana waxaan gaarsiinay magaalada rafax oo xuduudda masar ku taalla dawadiina way galeen waxaan fursad aan u helay inaan isku soo hagaagno in uu yimiday ninka geesiga oo la yidhaahdo galaawi oo ka mid ah xubinka ah baarlamanka dalka ingiriiska oo isaguna u siday 120 isjiid oo gaadhiye ah oo lagu siday dawooyin iyo dhar iyo xoolo iyo lacagba siday si u gaadhsiiyo ummadda reer falastiin sheekh cabdiraxmaan waxaa kale uu sheegay inay jiraan deeqo kale oo dhowr ah oo loogu talagalay shacbiga reer falastiin kuwaas ay ugu deeqeen buu yidhi shacbiga reer jabuuti iyo xukuumadda waddanka jamhuuriyadda jabuuti waxaa kaloo jirta 2 lacagood oo kale oo lagu kala ururiyey hooyooyinka oo iyadu 180,000 dollar noqonaysa iyo lacag kale oo lagu ururiyo shaqaalaha dalka laga gooyay oo iyadana noqonaysa
ilaa 300 kun oo dollar. marka lacagahaas oo dhanna way soo socdaan, safaaradda ayay soo gaari doonaan, qaar way soo gaadheen, qaarna way soo gaari doonaan. kadibna waxaa loo gudbin doonaa Palestine iyadoo la adeegsan doono maaragtay bisha cas ee dalka Masar iyo bisha cas ee dalka Palestine. mahad Carab oo Cali, telefishinka Universal, القاهرة.